wiiba mid uu tan ugu talagalay arhawiyaana gaaday hartiyo leelkasaha mudug joogo dhan waa inaa meesha dagaalka iska xaadirisaan raggii waa la gaaday waayahay adduun waxaynu joognaa 2023 ay sii dhamaanaysaa leelkasa laga celcelinayo ka hor reehilowna ka hor marka lagu siro oo majeerteenka iyo hartiga ay ku dhacaan derbi daaro afli waxa ku dhacda mugta maanta gaalkacyo dagaalka ma dhicine Soomaaliya taariikh ba ka dhacday gabadhaas u jeedaan gaalkacyo intay bartamaha istaagtay waliba qaybta Umar Maxamuud dagaalkan uma socdana idin sheegayay bay afka labadii yeertay hawiyaana soo qabtay arawiyaana gaaday arab gaala ku jiro burusada gaal jahal awaal baad dibl bareelu raciis kaliya way intaas markay marayso marka qisadaas min bilow ilaa dhamaad leelkasay reelowle wax istusay waan idin hayaa warka falsada oo beenta ah oo baraha bulshada la wareegay iska daayay qisadan meel dheer ka soo bilaabatay waa soo koobaya waxaan daawaday ninkii Yacquub Siyaad ahaa oo sheekadii ka dhigaba tii gooja cadaba saacado wuxuu ka dhigaba gooja cadaba kaale Ciise Maxamuud Ismaan oo kaale hay Umar oo kaale hay hadul baanto iska mashquulsano isaaq qalilku ilaalinay kaale adigu iska dami hay kadibna reehilowla la suugu tagaya asaguna bal la daawo nugaaleed waxaan leeyahay furinta inaad ka tasudiyaan reer bari waxaan leeyahay kalluunka iska dhigo furinta tag reer karkaale waxaan leeyahay boqortooyadii daarooyinka Yacquub meesha wuxuu ka dhigaba gooja caddo ka dhigay kaale leelkasii wuxuu leeyahay derbi daarood maxaa u bixisay waaya karbaashkii Yacquub iyo tolkiisa iyo waxaas oo dhan hay dambeeyo laakiin waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed ilaan diriye daarood iyo digli mirifli reer kastay leedahay in runta loo sheego waxa gaalkacay ka socdo dabinkan cidda ka dambayso qorshahan wuxuu yahay ujeedka Umar Maxamuud uu isugu daayay hilowle iyo leelkaso isku tabar aheena waxaasoo dhan baa caawa qishkaas idin sideynaya horta waayahay horta see wax u dhaceen Soomaaliyeed marna waa run marna waa kaftan waraysi nin al-shabaab ma daawateen oo niisada galmudug ay qabatay oo ay wareysanayso oo xoga badan bixinayo bal taariikhda dib ugu laab waxaan dhashay 1929 waxaan ku dhashay Caawad Waaq laakiin deen ahaan waxa ka soo jeeda gaalkacyo Galdogob waaya ninkaad u jeedaan waa nin leelkasa ah sidoo afkiisa ka sheeganayo waa reer gaalkacyo reer Galdogob horta waa nin leelkasa hooyadii baa deerta reer mahadade ma garanayno markuu reer gaalkacyo ku leeyahay laakiin waa nin leelkasa markay qabatan niisada Saacad Saciid ama Galmudug ama niisada Soomaaliya markay qabatana xoga badan buu soo daayay ninka hal gabar buu soo magaciisa sheegay oo Galdogob shaah ku karis waaye waxay kala sagaran maaye waxay noqoto marka ninkan laba nin buu carabaabay laakiin niisada ma sheegin magacooda ilaa waa sirdoon laakiin anigu waxay ugu soo dago waxnayga ma qarsoona oo waxba ima seegaanba ninka wuxuu carabka ku dhuftay qisadan bilowgeeda rabaa inaan idin sheegay labadaas nin buu niisada Galmudug la wadaagay ayaguna hadda way maqlayaan sawiradooda mujida labadaas nin waxa la kala dhahaa labadaas nin Cali Gubane iyo Sugulle waa laba nin oo leelkasa ah midna baashan biyaha kulul buu ka ganacsadaa midna waa shabaab tuutaha waa iska xiran yihiin tuutaha Puntland xataa ma aha waaya maadaama niisada Galmudug iyo tan Puntland xiriir fiican uu ka dhaxeeyo waxay ka boodeen nimankii leelkasa qaybtii shabaabka leelkasu shabaab ma wada aha in Puntland ay soo qabato ciidanka Puntland sirdoonka Puntland ay soo qabtaan waxay bari hore hadda xasuusataan sameysteen barnaamij la yiraahdo xiriir laan oo Puntland looga go'aayo si ciidanka amniga Puntland aysan u soo gelin Galdogob oo ay labadaas nin ula bixin ileen macluumaadka labada sirdoonba way isweydaarsanayaan si kacdoon leelkasa loo sameeyo Galdogob looga kaco Puntland dhagax lagu tuuro sheekadii laas caan amal isaaq looga ciirsan way sucaweys Puntland ma aadin ba xogta waa la hayaa Sooma intaas markay marayso nimankan maxay sameeyeen waa la baxay labada nin sawirradooda inta soo weeyay nin bay direen qaybti saacadku inta tagay iyo Umar Maxamuud xuduudda kaleeyay buu nin saacad soo dilay waxa la raba marka in la isku dhufto Umar Maxamuud iyo nimanka reehilowle in la isku dhuftaa la rabay ama saacadka si dagaalka ee leelkasaha nadiifka ma aha leelkasaha shabaabka uga faa'iideystaan meesha waa Bufferson way shabaabkuna qolyaha isnacib adduunka u jecel yihiin magaalooyinka la isla joogo sida gaalkacyo iyo Boosaaso iyo Xamar iyo adduunka waa ku noolaan karaanba dhul isaaq bay ku noolaadaan ما عدد جوان عساق وكاسا هل قبيل ميلو جوجو مرة بان لو سمرة ما جوجان مثل جوهر تجان مرة بان
nin bay soo dileen saacada yaa war idinku daal labadan atoorayaasha fili kada labadan nin waay saacad waa soo baxeen cumar maxamuud raadkii raaceen inuu cumar maxamuud ahayn arkeen waa adi waa lees yaqaanaa mudug isma qayaantee nin leelka saa madax laga soo jabshay hal la kala maraa soo maaha oo weliba shabaab ahaa leelka soo waa baxeene saqiir saacaday soo dileen haddana saqiir saacadoo 13 jira ay soo dileen reelulah intaas markay mar war saqiir baa disheenay maraysa sheekada waaye saqiirkii oo aan la duuginba oo xaalkiisa laga wada hadlayo leeyahay saqiir baa la dilay beelelka si haddana soo baxeen oo laba gaari soo qaateen oo galdogob ka soo baxeen oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi leelka marka qaar badan ay soo leelka soo shabaab ma wada ah dad fiican baa ku jiro nasab ah war aniga waa idin naqaanaa leer ordaniyo saacadka iska celish laba hoomey soo qaateen laba gaari oo shacab qor laga soo buuxsaday dhul xoolo dhaqato isaga badan tahay oo mii ah baa saacad hubaysan oo reehilo reeciisa loo tagawrto 15 nin oo akayaal wadato booshash wadato wiilal reer ciisa ula dhaadheer anaa soo ag marey garoonka ismaaciil markaa u socday baa loo tagay 6 nin baa laga soo reebtay nimanka qarm ma weligoodii arkeen 6 nin la iska reebanaa 15 nimanka saacad xabadeeba quutaanba ma yaqaan reehilowla haddii la dhaho jufada horta leelkasu waa siran yihiin cumar maxamuud aa yaqaane hawiyo dhah haddii jufa la dhaho nimanka ugu hawi qubka badan wey 30 sano lasoo dhaafay hataa ciididka ma dhan ciidid waa reer jaraf nimankaan ugu badan oo Cismaan Caata iyo Cabdi Qaybdiid iyo inta aqoonina taqaan ma taqaan inta aqoon waa leelka saxamalo habeen iska gashay meeshii subax la siiyay lixa laga qabtay waa laabteen afka labadiya galdoog inta la taga leeyahay waa wareey lix baa laga dilayay waa wareey dagaal baa hadana galabta la soo qaad haddana sagaala la reebay reehilo waa wareer qorta ay gil reehilo ilaahu qorta ay gil rabbi rahmaano war hadda si fiican u sii bartay reehilowle sagaal markii la reebay 6 ku dar maxay yalbaash leelka samxa mashkiil meeshaas markii xaaj marayso galdogob afka la yeeray waa wareey horta intaas saas wuxuu dhacay cumar maxamuud ku soo haray waa rag been sheegi maayo waa rag dagaalamo waliba saacadka iyo cumar maxamuudka aag culus oo 30 sano ah liig adag ka dhax furan haddaad maqasho daaroodkaas dhan oo jiifa boosaaso ilaa garowe ilaa laascaano ilaa qardho daaroodka nabadda ku jiifa cumar maxamuuda wallaahi وبالله والله أصاب عبر قدر إسبشر سعد نمك ليرا واللوقت حبد يقانان نمك ليرا عمر محمود لكن للكسو هذا عمر محمود مالكو أجينو تاجيها أنا أقول شباب مربو يا عمر محمود نمك هرتي أيوب أو هذا دجال كان وكا جبسي ها حديبة أيوب كو هاللي إنه عمر محمود كو دجال منين للكسو مال ما آخر السمانة ما إذا كان العرب ترى معناه دجال عمر محمود أن كجرين درب الدار وحسب جرتانك إذا كل لاين أنا ربطي دي الشيء يعني بجرتانك يا إذا كل لاين أنت أنا قصارها أنتوا إنه ضعف مجعلي ده اللي الكستين كل هذا ترب بدن ومجك بدن يلقوا محمنين هذا رهلو إذا جرجرتان أو إذا جفان أو هيربي عدك قاضي بارك قاضي ودنها قاضي وكليها قاضي يا لو واحد ضف حاسو هراء الكسو حاسو هراء واي أنت صرتوا أنتس مال إيدي دجال كان marka dhanka siyaasadda loo eego waxay ujeedada leelkaas waxay ahayd ba Umar Maxamuud Saacad isku dhacaan leelkaas shabaabka ah waa leelkaas nasabka ma khubarada dhanka dagaalka ay ninkii Yaqoob waa dambeeyahay khubarada dhanka dagaalka waxay leeyihiin dagaalkan ujeedkiisa ugu weyn ba Fahd Yaasiin amal gelnay hooyadii baa leelkaas ah saga sheeqal baaska ali hooyadii baa leelkaas ah waaya muxuu ka faa'iideeyaa in saacadka jooga dhuusamareeb kuwa galcad u sii socday kuwa ceeleer u sii socday dhulkan hadda hawiye la xureynayo waliba yaa in laga soo laabto dagaalka laga dhigo Cumar Maxamuud iyo Saacad si dagaalka beelaha uu mar labaad u dilaaco kii maxaasada xawaadle macawisleedeeda iyo murusadii Jaafar wataleys qorta la isugu gal rabay baa la fangareeyay in haddana leestuso nimankan leelkasa bilow laga dhigo kadibna harti iyo saabir gidir noqoto haddana gaalkacay baasha ka dhacdo halgankii Xasan Sheekh Maxamuud uu waday haddana yaa ciyaarta la soo bilaabo waana waa suurtagal way taas ogaada wallahi xisaabta ku darsada faad wax walba ka suurto waaya intaas waxa ay dheer marka Yaqoob Siyaad baan arkayay oo afka labadii yeeray artiyo qaar Cumar Maxamuud dagaal ma rabiyo
nabad buu rabaa saacadna nabad buu rabaa hadda kuu sheegaya laakiin shabaab cid qaadanaysa ma jirto hadduu saruur yahay duu waxis leeyahay cid rabto u gurminaysa ma jirto rag shabaab waayo waxaan rabay yacquub inaa mid u sheego horta nimanka aad u qaylo dhaaminayso waa niman dhulkooda joogo xiniyo waaweyn oo saacad siciid la yidhaah reer hilowle la yidhaah wey oo reer ciise la yidhaah adigoo aqoon uma lihid oo garow waa deganta inkastoo ciise ruush maalmahan aan is salaaxna aniga ciise ruush wax dhihi maayo adaan ku haystaa anigu qabiilkii qofka way kala xisaabsan yahay waxay noqotoba nin nugaal degan oo garowa degan oo colaad wax ka aqoonataa horta dagaalna nimanka ayuub ka dhashaa dagaal anaga ugu tagnaa cabdullaahi yuusuf ka dhashay kuwaasaa horta yaqaano meesha loo socdo iyo meesha laga socdo laakiin sacad siciid haddaa la kaftamo qayla dhaanta yacquub waxba ha u qaadanina xataa haddii harti yimaado oo harti dagaalku qayb ka noqdo sacadow halganka xasan sheekha ka bixina sababta mataqaana war halganka aad xaradheere iyo dhulkan abgaal iyo dhulkan kale habar gidirta kale u tilaabteen oo adinkoo niisa leh oo boolis leh oo military leh oo macwiisle leh ha ka soo laabanina anaa qishiidii sheegay xataa haddii harti yimaado oo dhulbahanta soo laabto dhulbahanta hal ilo isaaq isagaay halka iska rid yeeli maayo waaba iska ridiyaba soo baxba haye cismaan maxamuud oo boosaasi qarda ka soo tag haye ciise riyolow haddaa rabtid gadaal ka laabee doorashada markii la gaaray adna soo bax haye waaba soo baxeenba meeqa bilay qaadeen mid qaasacdow 8 bilood baa haddii xataa gooja cadde inta laga dhigo 8 bilood ciddaan isugu caayaan taleefonkooda 8 bil kadib uu dhacaa ringin duud cumar maxamuudow 8 bilood taleefonka dhaca markaasaa la qabanaa alaabta gooja cadde waa ilaa saa ka dhigan ma ka dhigin mugta haddii wax laga helaya meeshaan yaa gooja cadde ka dhigbe cismaan maxamuud waxaa la wacaa 8 bilood oo waxaa la wacaa nimanka la yidhaha sawaaqroon 9 bila la wacaa waa sheekada gooja cadde marka shaqadiina soo dhammaysta xasan sheekh 4 bilood 3 bilaa ka badan markaa soo xasishaan xataa isku imaadaan yaa waqooyiga gaalka cadde isku imaadaan xataa bilooyinay qaadaneen horta yacquub ma sii kiciyey yacquub horta dagaalka ma kiciyey 8 bilay sii qaadanay weliba ayuub hadduu aan laa maybe 8 bilay qaadan leed 8 bil taleefonka dhici laa waxay noqotoba meeshaan nimankan sacad siciid liira liilkasow intaas waa kaftan anigu haddaan idinku qaldoomana raalli noqda liilkasow yaan la cirab tirin aan runa idiin sheegaya dad tiro badan ma hidin walaalayaalow af libaaxaan la geliyaya derbi daarood idinkoo dhaadhaxda ha ka go'inaha derbi daarood loo wacaayo ka hor 8 bilo cumarow kaale cismaanow kaale derbi daaroodaba tahay walaalow haddaad derbi daarood tahay nimankaan sacad siciidna waa derbi soomaali wey derbi soomaali aduu derbi daarooda ka sheegay derbi soomaali ku dhaxbal aduu derbi daarood gooja caddaan ku bartay gooja cadda kale yaan gaalkacyo laga furin nimayahow anigu lilkasa saaxiibtinimo wax ugu sheegaya haddana hartiga cugdad bay idii haayaane dagaalkii ma gelin gooja cadda ma gelin walaayahow sacad yaani laga aarin mina aarsasho waay halkaan ku dhamaadaan dagaalka halkaas ma gelin intaa ku dhamaadaan wey war qaab kasta waxa idinku sheegay war maqla waa yahay intaas barnaamijkayga habeenimo ku soo gabagabeynayaa yacquub haddaadi 8 bilood taleefon dhacay waa laga tegay saacad siciid hal daqiiqo oo isla joogaan ay saleebaan imaan ceer imaan maayo saruur imaama xardheer isaga qiilayaan laakiin habar gidir hadday iswacdo wallaahi hal daqiiqo wey hal daqiiqo ringin accepted hay maxaa kaa caawinaa waa ambalaste qolyaha caafimaadka mataqaana habar gidirta hadday iswacaan waa qolyaha caafimaadka hay maxaa laga caawiya hore laga qabanaa laakiin harti ma wacate 8 bil sida gooja caddaa sugay wallah marka lilkasoo dan idinkuguma jirto arrintaani nasta oo niman culimadiina oo aqyaara oo ahlu beyda tiina yaani la qatalin waayahay intaasaa barnaamijkii caawa kusoo gabagabeynaya bye